حقوسيو حقوسيو إنها قلي كان حقوسيو وسدي مودي زودن مودي مريامي إني كوما نيدو telefishinka RTN TV waxa uu ka qayb galay isla markaasna uu kuur galay arooskii qarniga hadda saacada hadii aynu eegno waa 12 badhka habeenimo saacada geeska Afrika waxaanu ku sugannahay deegaanka gogol wanaag ee ka tirsan gobolka Gabiley gaar ahaan degmada Arabsiyo daawadayaal waxa halkani ka dhacaya aroos aad iyo aad u qurux badan oo cajiiba kaasi oo 19 jirkii labada dumar hal mar wada aroosay waa Ismaaciil Samsam iyo Nuura haddaba arooskani ayaanu jecelahay inaan u kuur galno isla markaasina bal arooskani qarniga lagu tilmaamay ee iyagu dhalinyaradaasi iskuursaday waa 19 jir 17 jir iyo 18 jirkaas aroosay waxaan jecelahay bal arooska iyo labada aroosadood ee halka mar la wada aroosay oo caawa ay u tahay habeenkoodii labaad isla markaasina loo yaqaan gaafka inaan u kuur galno waxa jira iyaguna dadweyne aad iyo aad u tiro badan oo iyaguna ka soo qayb galay gaafkan isla markaasina meel fogfog kala yimid oo iyagu halkan ciyaaro kala duwan isku dhaafsanaya aqalada aad arkaysaan waa labada aqal ee lagu kala hoyn doono labada aroosadood ee halka mar uu Ismaaciil uu wada guursaday waana aqalada loo yaqaan laba daryaalaha waxaan jecelahay arooska labada aroosadood iyo waliba ciyaaraha kala duwan ee meesha ka dhacaya inaynu u kurgallo نفسي قلي صار نقشدا جمهور عسنمو أنا هدي أكوناوي أقبوا على دور نسيب ويسو كسيرو العبد إسماعيل دأدا دواء مسجر سقالتها 19 jir wahagaag adigoo 19 jir oo aad u da'yar ayaad raggi kala dhaafto weyn oran karnaayo maxaa ku suura galay inaad kalsoonida inta yeelato inta leeg labada dumar ku wada guursanayso waxay suurto galiyeen labada gabdhood oo sheekaysan jirnay marka wada sheekaysigii badan wada sheekaysanay wada sheekaysigu xilligaas guursanay gaadhay labada gabdhood waxaan ku keenay inaan isguursano saddexdood waan sugeyn sugaashii bay gaadhay xilligaas guursanayna markii ay gaadhay waan mid soo horkaxiyey mid soo horkaxayntii haddana tii kale igu kaliftay soo kaxayntii haddana iyadana soo kaxaystay wahagaag labada gabdhood ma midkood baad horbaratay ma hal mar baad wada baratay bal anaga iyo daawadayaasha ayaan jeclay inaad qisada si fiican aad noogu sharaxdo hal mar baan wada bartay markii hal mar aan wada bartay saasaan u wada xidhiidhna gogol wanaag gogol wanaag marka ku bartay halkii ka wada xidhiidhna wada xidhiidhka markiisa isku guursanay marka iyagu miyay hore isku yaqaaneenoo adigu sheekaysiga aad la sheekaysatay ka hor iyaga wax aqoona oo ka dhaxaysay miyay jirtaa arday baan wadahay isku arday baan halkii ka wada xidhiidhna markaan ka wada xidhiidhnaan dusaa u heshiinay saddexdood ku wada heshiinay heshiiskii waan soo wada galnaa saasaan isku guursanay labadaada xaas haddii aad magacyadooda noo kala sheegto bal noo sheeg samsam maxamed daahir iyo nuura maxamed cabdillah saasaan wada xidhiidhnay samsam maxamed daahir iyo nuura maxamed cabdillah saasaan wada xidhiidhnay nin dhalinyaro baad tahay maxaad ugu tala gashay hal qoys baad hal mar wada yagleeshay oo weliba laba gabdhooda maxaad ugu tala gashay ka kalsooni ahaan iyo waxyaabo kale kalsoonida anaa isku kalsoonaa iguna igu kalsoonahay kalsoonida markaan isku kalsoonaa saddexdooda isku kalsoonaan in isguursano saasay kalsoonidahay markii aad doonaysay ee gabdha aad reerahooda ka doonayseen ma jiraan wax caqabada oo iyaga reerkooda kaaga yimid may jirin saas uma lahay iyagu kasakow guurkan aad wada guursatay ma yihiin dad isku faraxsan oo wada qoslaya oo wada sheekaysanaya mise midba gaarkeeday u aamusan may wada qoslaya isku faraxsan aad bay isku faraxsan aad iyo aad bay isku faraxsan
inta badan ragga waxaa lagu xantaa inaanay ka soo bixin kalsoonida qoysnimada oo xoogaa xag u yara janjeersamaan taama laga yaabaa inaad iska jirta adigu hay taa lagama yaabo dhinacna ma jirto labadaba waan maxayne ya ma jiraa jadwalkaaga qorshaysan ood is leedahay aad labadooda ku kala hagtid haa jadwalku dee aqalba habeen baad galaysaa nuura maxamed abdullaahi nuura bal waxaad nooga sheekaysaa dareenkaaga iyo jawigaaga habeenkani caawo ay ku tahay habeenkii labaad ee geefka jawiga waan ku faraxsanahay samsam maxamed daar samsam da'daadu waa imse jir 18 haye ka waran xafladahan iyo arooskan iyo xaajigiina cusub bal ka sheekay jawigaaga والله أنا كفر حسنا على وضعه. رالي ما كنا. أنا كل شيء. أنا كفر حسنا بين كنا والله بقى. سجل مصطفى حسن نور RTN deegaanka Google wanaag. Backusiyo, indhaha qalin kare.